kulan wacan daawadayaasha sida tooska uga xiran Dajiya TV waxaan halkan idinku soo gudbinaynaa qaybta labaad ee faaladii aanu diiradda ku saareynay jacaylka shalay iyo maanta. waqtiga maanta aynu ku jirno waxa aad moodaa in jacaylka uu ka gidisan yahay isla markaana uu ka meeqaan liito jacaylkii waqtiyadii hore iyadoo hadda ay maanta jiraan waxyaabo badan oo aan isdhihi karno waxa ay fududeeyeen is-aaminka in uu yaraado. maanta labada qof ee balan guur ay dhex taal wadankana ku kala maqani waa ay adag tahay in ay hal maalin ama sida dhalinyarada qaar saacad daqiiqad la isaga warhayo iyada oo la haysto dhammaan alaabihii sahlayay in si toos ah loo wada xiriiro sida Facebook, Viber, WhatsApp. intaasi waxaaba kaaga sii daran iyada oo ay dhacayso in labadii qof ay si toos ah u wada sheekeysan karaan iyaga oo is arkaya isla markaana uga muuqda inay soo fadhiyaan. sida aynu kor ku soo sheegnay dadkii waqtiyadii hore mucaashaqiinta ahaa warqadaha ay isku qorayeen waxa ku sawirnaan jiray oo kaliya hal wadne oo falaari ay dhexda kaga taalo, balse dhalinta maanta waxay iyagu haystaan waxyaabo aad u fara badan oo ay u adeegsan karaan soo jiidashada iyo jamashada jacaylkooda si ay u muujiyaan in jacaylka dhab uu ka yahay. haddaba iyada oo ay waxaasi oo dhami jiraan ayaa haddana waqtigan xaadirka ah waxaa badan oo si joogto ah markasta u dhacaya kala shaki ku abuurma labadii qof ee balanta guurka ahaa ka dhaxaysay. waxaad waqti kasta oo Allah keenaba maqlaysaa isla markaana aad arkaysaa dad xiriir guur oo fiican uu ka dhaxeeyay haddana si sahlan wadada ugu kala tagay. waxa ayana qayb weyn ka qaadata kala shakiga degdega ee dhalinta maanta iyada oo qof kasta uu leeyahay saaxiibo aad u fara badan oo mararka qaar aad isdhehayso malaha qofkiiba waxa uu saaxiib leeyahay ugu yaraan 20 qof iyo in ka badan, taasi oo iyana dhaawac weyn ku noqon karta xiriirka labada qof ee midna uu maqan yahay midna dalkii uu joogo. haddii aad u koorgasho sababaha keenaya inay si sahlan u kala tagaan kuna baabi'iyaan balantii iyo wacadkii ay dhigteen, waxa mid kastaba uu ku sheegayaa in kan kale uu ka qaban waayay telefoonka, Viberka iyo waxyaabaha la midka. taasi waxaaba kaaga sii daran oo iyadana qayb weyn ka qaadata kala taga labada qof arrimo aad u sahlan oo ay ka mid yihiin in midiba midka kale uu ku eedeynayo inuu xiriirka la leeyahay qof kale. haddii aad weydiiso inuu arintaasi wax cadeena u hayana waxa uu ku oranayaa haa waxa aan arkay iyadoo ama isaga oo Facebook like ama comment amaana ugu qoraya heblaayo ama hebel, taasi oo u muuqata in ay labada qof kala shaki weyn soo kala dhex gelin karto. waxa ayana la oran karaa waxa qayb weyn ka ah mushkiladahan aynu ka soo sheekeynay ee dhalinta maanta haysta iyada oo la isku barto la iskana caashaqo aaladda internetka muddo yar kadibna si fudud shaarica loogu kala tago. haddiiba ay jirto in halku dhig iyo heeso la isugu marayo hawada, heesahaasi laftooda ma aan kuwa xigmad caynkaasi ah ku fadhiya, bal aynu wax yar ka soo qaadano heesaha sanadka. waa dhamac jacayl, nafta dhaawaco, ani dhaawaco, dhalan rogay jidhkee, dhuuxiyo qalbiga idhex qaadayo wadnahay dhag leh dhag. waa in badan hees ay ka dharagsan yihiin jiilka maanta, balse jiilkii suugaanta waa uu jooga u soo ahaa heestan oo aan si toos ah dagaal ugu ahayn anagu. haddana waxa ay u muuqataa in heestan iyo heeso kale oo la mid ah ay yihiin kuwa micno sidaasi ah aan soo kordhinayn. bal haddaba daawade waxaad isweydiisaa waqtiyadaasi hore ee aynu ka soo sheekeynay xitaa labada qof ee balanta jacaylka ka dhaxaysa ma aysan haysan wax dhaqaale ah, waana taa kaliftay in ninku uu haajiro amaba uu tahriibo si uu u gaaro dhanka iyo wadamada horumaray ee Khaliijka ama Yurub mar uuna uu soo shaqeysto. sababta kaliya ee tahriibka ku kalifaysana waxay ahayd guurka iyo gabadha uu balanta ka qaaday sidii uu u guursan lahaa isla markaana axdigii uu uga soo bixi lahaa.
balse maanta iyada oo ay dhici karto in mararka qaar ay si sahlanba lagu heli karo dhaqaalaha labada qof ay isku guursan karaan, ayaa haddana waxaa jira kala shaki iyo isfaham aad u xooggan oo u dhaxeeya dhalinta maanta. halkee ayay sartu ka qorunsan tahay? halkee ayay wax iska qaban laayihiin? maaladahan casriga ah ee inagu soo biiray ayaa mushkiladaha wata, mise inaga ayaan ka faa'iideysan oo sidii saxda ahayd u marin? halka ayaa dad badan waxa ay u arkaan in loo noqdo dhaqankii iyo diinteena suuban ee Soomaaliyeed, taasi oo halka ugu badan laga heli karo. dhalinyarada qaar waxaaba ay ku sheegayaan marka aad uga sheekayso wanaagga dadkii hore iyo habkii caashiqa ay u daryeeli jireen, in dadkaasi ay ahaayeen dad magaalada ku cusbaa oo aan wax badanba ka garanayn caashiqa. waa sida iyagu ay qabaane, balse suugaantii hore markaad dib ugu laabato waxaad dareemaysaa in muhiimad gaar ah ay lahayd in qofka jacaylkiisa uu u sheegto qof kale. hase ahaatee qofka hore kama aqbali jirin oo wuxuu qiimeyn jiray heerka jacayl ee qofkan uu qabo iyo heerka uu gaarsiisan yahay. maanta sheekada waxaaba ay maraysaa waan kaa helay oo waan ku caashiqay. waxaad arkaysaa iyadoo lamaane caawa isguursaday maalin ama 2 maalin kadibna kala tagay. markii aad su'aashana waxa ay ku sheegayaan in jacaylka banaanka ay si wanaagsan u wadeen, balse markii guriga la yimaaday qof walba dabeecadihiisana uu la soo baxay midba midka kale uu ka orday, maadaama labada dabeecad ee banaanka la isku soo baray aysan ahayn kuwii saxda ahaa. inkastoo dumarka maanta ay yihiin kuwa wanaagsan, raggana sidoo kale, haddana waxaa muuqata in jiilka cusub waxyaabo badan ay ka daydaan aflaanta wadamada shisheeye lagu soo jilo ee sida weyn ugu baahay deegaanada Soomaalida. waxaana aflaantaasi ka mid ah iyadoo labada qof si sahlan ay isku baranayaan isla markaana si sahlan ay ku kala tagayaan, taasi oo dhaawacaysa dhaqankeena iyo diinteena suuban. hase ahaatee dhanka kale waalidiinta intooda badan wacyigelin kalama daalaan caruurtooda oo waxay yihiin kuwa si joogto ah ugu dhiirigeliya in ay wax qabsadaan, jacaylkooda uu noqdo mid sax ah, isla markaana guriga ay dhisaan si sahlan aysan ku dumin. waayeelkadeeda qaarkood ayaa u arka waalidiintooda in ay ka dhacsan yihiin dunida maanta iyo waxa ka socda. way adag tahay in wiil amba gabar Soomaaliyeed ay maanta si fudud u qaadato waxyaabihii hore aynu ka soo sheekeynay iyo sida wanaaga uu ahaa. haddaba isweydii adiga lamaanahaada oo Sacuudi Carabiya jira ama Ingiriiska jooga muddo sanado ahna ka maqan, isla markaana aadan haysan telefoon aad ka wacdo oo ay suuragal tahay marka kuugu farxadda badan inaad cajal u duubto in aad ku aamini lahayd in uu sanado kadib ku soo laabto aadna la aqal gasho. sidoo kale wiil haddii aad tahay bal ku fikir talaabadaasi ma samayn lahayd? faaladan ayaan waxaan ugu talagalnay in dhalinyarada Soomaaliyeed aan uga faa'iideyno meel walba ay joogaan wanaagga iyo dhaqankii hore iyo sida aabayaasheen ay u soo dhaqmeen iyo sida ay guul ugu gaareen in hooyooyinkeena guryaha ay ku daahaan, isla markaana aan si fudud aysan u kala tagin aabe iyo hooyo. dulqaadka oo ah wax ugu weyn ayaa la aaminsan yahay in reer lagu dhisi karo laguna dhaqi karo, balse maanta waxaa jirta mahmaahyo kala duwan oo ay dhalinyarada si weyn u adeegsadaan. waxaana ka mid ah mahmaahyadaasi iyadoo dumarka ay u arkaan in silac ay ku jiraan ay dhaanto in soddon ay guursato, taasi oo ah mid diinta Islaamka iyo dhaqanka suuban ee Soomaaliyeed aan marnaba raad ku lahayn. haddaba haddii aad nagu cusub tahay, subscribe saar oo asxaabtaada la wadaag sheekooyinka cajiibka ah ee aan ku soo gudbino. mahadsanid.